odayaal iyo siyaasiyiin ayaa maanta shir jiraayad ay ku qabteen magaalada Boorama gaar ahaan hotelka Rays waxa ay kaga hadleen Suldaan Abibakar Cilmi Babar oo isagu dhawaan sheegay inuu ka goostay Somaliland shirkan jiraayad ayaa waxay kaga hadlayeen ciidamada ay xukuumadda Somaliland soo dhigtay degmada Quljeed xildhibaan madar oo kamid ah golaha wakiilada Somaliland ay oo isagoo halkaasi ka hadlay ayaa ugu horeyntii waxa uu sheegay December waxa halka fadhiya guddiga dhaqanka ee beesha Jibriil Yunis Hesron intii ka joogtay oo waliba intii majority aan karo Suudaankuna xaq buu leeyahay inuu u hadlo dhammaan beelaha Samaroon ee magaalada Buursi waayo inta oo jeer ayaa xukuumadda loo gudbiyay codsiyo iyo cabashooyin oo mid ka mid ah aan waxba laga soo qaadin hadday sidaa tahay Suudaanku kacbadii buu gubin ee wuxuu yidhi waxaanu ka weynay maamuuskii iyo sharafkii iyo karaamadii Qur'aan iyo xuquuqdii dalku lahayd waana runtii anoo xildhibaankiisii ayaa u marag furaya inay taas run tahay odayaal iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxay xukuumadda u sheegeen in xukuumadda Somaliland ciidankeeda ay kala baxdo degmada Quljeed wixii halkaasi ka dhacana ay xukuumaddu mas'uul ka tahay ayna iyagu mas'uulayna ka noqonayn iyagoo arrimahaas iyo arrimo kale ka hadlayna waxa ay sheegeen nabadgelyada inta maalin qol inta 22 sanado wax isirdiya ka dhigay hadal shalay ka soo baxay kuba gadno in taasoo ciidana la keeno laguna bajay carruurta laguna cabsi geliyo dareera golayaal baa jira goorta waxa u qaybsan baa jira salaadin baa jirta ka mid yahay culimo jirta ciidan ma joogin meesha keltii odayadii goortii baa tagay suldaanadii had ka mid ah eraygan may kula qabaan isaguna qabaan hamaan maqalay siduu u degdegay annagoo u fadhina geedkii isla diideen ciidana joogin meel magaalo oo baaraxo askartii dawladdu joogtan iska fadhiga ciidamada shaayid de waxaan u maleeyaa baroorta origi ka weyn wax kala meeshi jiray oo ogeyn oo intaan dhaafsan وهذا الحكومة تكلم بحوار عيدا كانت تسعين وهذا السلاء ومطر ده واحد كان شيء قاريات سقى بيري جبريل يونس الله دورتي أما سمرون سووا الحجوبة والله هذا اللي منوي بدي وحنا من ككاري وربدين على جوكتو دين على جوكتو إثيوبيا ككاري محاجروني واربكاري ما نديو وارتكاري وحنا جوكتو لكن سكاري waxaan keenay Somaliland dhexdeeda degmada Quljeed baan keenay hadayna Quljeed kamid ahay dhulka Somaliland dawada noo sheeg nabadii anagu halka ku hayna wixii dhacayna Suudaanka ka warsanayna oo ganacsatadayadii u qaashi indheer garadkii taladii wasiirada inta baa anagu u shira Suudaanka la doortay waxa Suudaanka waa wax umadiisu ka hadashay anaga dooranay وسودان كيجي وحنا كنا قاعدة حق بانو لهين أن لا إجنو أن أرنتها والوحي أن السوق أن حق بانو لهين كنتين الله دري إياها ترى عيدنا لقدر شرقال أكبر المسلمين سدا سدرتين تأمر هدينا لشرقالي أو يعني عدي فريهد أنكم بحني هوشة مسؤولية الحكومة عليه هبا ياراتي وحنا لقا ويدين كرو ملا وحكا كبايا مسؤوليتي عن قادني مرة دينا لنبرسبيه قولي دقان كاتيين ودنا حكومته مرة بعد ما نكرت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأرين معي قوستكو بالحوضة سلطان كنا وقهويري وسلطان جبريل يونس وسلطان سمرون وهرمود كوي ويان هذه أوقف سمية ما هو حشاقي حق وحلول أساس وشروش الميسكا وده هذاك دقنك متغنى قرتي لو هذا لكن عيد المجيان هذا نوع حنلين هاي هذا السوق هذا عيد ما هالكاتشوجا
meel hay maraan la laayahay hadaan la soo qaadin wixii ka dhaca dawladda ka mas'uula dadka iyada laynaysa magayaan gobolka awdal wuxuu yahay waa la garanayaa laakiin weyd buu noqday wuu ka go'an yahay ma taqaanaa Somaliland xaq lama laha reer baa luka qaysta reerkaay wuxuu yiraahdaa baa soconaysa reer walba uu leeyahay ma taqaanaa wuxuu gaara oo ka baarlamaanka iyo sinaayma isqabteen gurtiga markii loo diray iyaga xaliyay maxaa keenay suldaan dhaqan oo wax yiri in ciidan lagu weeraro dadkiisa la kiciyo la duldhigo dagaalama ay dawladdu leedahay samaroonkuna waxyaabaas oo ku kacay iyaga ba xaq uga xigay oo ka wasiiradii baa la laayay waa la soo diray shirqool la sameeyay taayna wax la geeyo maaha wax la qaadi karana maaha waa hadii dadku tafiir go'ayo de qof loo dhimanaya saacadii soo u dhimani aga jugleeyna maanta ma shaqaynayso Ahmed Diriye Ciltire Radio Hilaa magaalada Boorama